shir maanta ka dhacay xarunta ADC ee magaalada Baydhabo ayaa waxaa lagu doortay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya halkaas oo ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u fara badan iyo waliba xildhibaano tiradoodu gaaraysay 90 mudane halkaas oo ay ku tartamayeen laba mudane oo iyagu u sharaxnaa inay qabtaan xilka gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya mudane Xaaji Cali iyo Cumar Aadan Cumar Dheere waxaana doorashadaasi cod aqlabiyad ah ku guuleystay mudane Cumar Aadan Cumar Dheere ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay mudane Xaaji Cali dambeyntii ayaa waxaa munaasabada ka hadlay Aadan Cumar Dheere oo isagu ku guuleystay inuu qabto xilka gudoomiyenimo ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaan idin sheegayaa maanta waxaan taaganahay calaamadihii Koonfur Galbeed horumarka ay ku sameeyeen insha Allah isxukunka awoodda isxukunka waxay ka bilaabataa shacabka waxayna ku dhumaataa shacabka dastuurka dowladda dhexe ee federaalkana wuxuu sheegayaa rabitaanka shacabka inaan marnaba laga gilgili karin uu sheegayaa maanta waa maalin weyn walaalayaal waxaan u malaynayaa Cumar Aadan Xasan Cumar Dheere doorashada helaya Leeylah baa ii gartay Xaaji Cali saaxiibkeeya kama aqoon badni kama ragnimo badni nin walba Ilaahay uu baa taariikhda waqti ku qora maanta ana ku qornaa saaxiibkay waa u mahad celinayaa sida sharafta leh oo qiimaha leh oo Abshir Maxamed Nuur Mandela Royal TV Baydhabo